السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada guys, I hope inaa wanaagsan tihiin. Cashkan wuxuu noqon doonaa cashkii shanaad oo aga hadlayna casharada basic forensics ee aan soo wadnay. Before intaan cashka gelin, waxaan rabaa marka inaan ka jawaabo laba cudurdaar oo soo laalaabtay oo arday inta badan comment ku soo qoraan. Ka koowaad oo ahaa sida casharada soo badi oo cashara oo badan ka dhigo daqiiqadaha badi. Tan labaadna ah la soo dhaqso oo cashara isku soo xiriiri. Taasoo ka cudurdaaranaya sorry guys, xogaa safar ay soo galay. marka ma isku daba xiriirin karin sidoo kale cashara ma soo badin karin maadaama aan qof safar ku jiray laakiin hadda waa soo laabtay maasha allah. waa joogaa hadda insha allah dadka bacdi cashara waa soo xiriirin doonaa oo waxaan isku dayi doonaa maalintiiba inaa hal ama laba soo dhigo sidoo kalena aan daqiiqadaha badiyo cashara laba ka dhiga hadday ugu yaraato ee hadda iska badanba. laakiin hadda wax noo haraa iska yarba hadday ugu badato laba cashar kama badna ama saddex cashar kama badna wax noo haray maasha allah meel fiican aad taaganahay marka soo dhawaada guys. إن شاء الله عرضاركاس إن شاء الله وحلين دونا أوكي. عشان كمان تبارك عشان كمان تا ومحي لوت سايز لوت سايز ومحي لوت سايز ومحي مركا ما دام أسواق هذا بيبنا أسواق هذا مي بروكرنا أسواق هذا مي والحريرة عشان كمان بروكردي يبيبكي يبيس فروك وحي والحريرة لوت سايز الأنتيس يبيب وحوم معها بيب الأنتيسنا لوت سايز وحوم معها مركا لبضان والسكول فنا مركا هاسكول فنا يا لوت سايز كا يبيبك على سكول فنايا والله بس شقيسة الله حساب شقيسة واحد هذا بيب هيسن لص حكوا ترى معايا هذا لص هيسن بيب حكوا ترى معايا فكلوا حتى هاي والله حس الحريرة وامك سووا مك مركا عوض عشان كيف نقول ده مركا لص هيسن نقول ده أوكي فكلص تقحتين كذا أسعارهم لص هيستحتين كذا حواي وهالبيج لإسكوا تقسيم يعني مركا وهذا اللي عبره كون كان أنتوا إيه هاي مركا هل عبره واللص واحد إسكوا وافقسين يعني أما size isku waafaqsan yahay oo qof kasta oo maanta farq isku jiro isku waafaqsan yihiin sidoo kalena lagu cabira marka waxa lagu dhuftaa marka akoonka lacag ku jirto ee waxa lagu dhuftaa biibkaaga kadib waxa ku soo baxa loss size-kaaga ku soo baxay taasna waxay ku xiran tahay akoonkaaga biibka ay haysto iyo risk management ay isticmaalayso taas laga baahan yahay risk management ay isticmaalayso maxaa waaye ana ahaan waxa isticmaal 1% akoonkeena okay 1% isticmaal akoonkeena akoonka haduu 100% yahay 1% ku dhufanayna kadib waxa noo soo baxa waxa ku dhufaynaa biibka kadib waxa ku dhufaynaa lotka okay marka maxaa waaye akoonka dawaantay ay hayeen koon ay ku jirto 15 akoon ku jirto daayirta 1% meeqo ku yahay $100 ku yahay soma $100 ku yahay okay $100 aad haysataa $100 marka meeqa biiba u baahan tahay meeqa losaysa u baahan inay gaarto marka uma baahnid marka sidaan idin sheegayba hadda waa laga tagay xilliyadii la isticmaalay kulaad marka soo qaato xisaabta waa laga soo tagay hadda waxaa la marayaa dawladda jiraan oo la geliyo kadib ayaa ku saarayaan marka hadda lacagta ay sid losayska wax dhan ayaa ku saarayaan mid kale ogow lacagaha isku biibna ma aha isku losayna ma aha ana isku losayna maxaa ka wada losayska cabir karta ala askale wax meesha gelinaysa ala askale okay laakiin waxa laga yaabaa lacagtan in isku biib yihiin tusaalaan tan ay konton biib tahay tan ay konton biib tahay laakiin aku kala gelin different losayna ku gashiya laga yaabaa taas maxaa waaye cadadka uu ku fadhiyo ama halkii biib qiimaha uu ka joogo lacagta uu ka joogo tusaale ahaan lacagta dollarka waa lacagaha ugu qaalisan marka maadaama lacagta ugu fiicnaan ay ahayd lacagta USD-da waa lacagta ugu qaalisan kuwa ka soo hara marka JPY-da iyo waxyaalaha kuwa ka soo haro kale isku losays ma aha sababtoo halkii biib oo dollar markii la joogo kale qiimuhu ku fadhiyaa for example tusaalada usoo qaadano dollar ku fadhiyaa dhahayna halkii biib waa tusaale ma aha saxda tusaale waa laakiin lacagaha kale sida hadda isku raacno kale kaadka oo kale ama yeenka oo kale soo qaadano kale halkii biib ku fadhiyaa 0.3 oo kale ama 4 oo kale 0.4 oo kale lacagtaas aan lagu fadhiyaa ama 0.45 oo kale aan lagu fadhiyaa marka darees marka de kuwa lodka ku galaysid iyo kan lodka ku galaysid iskuulada noqon mahayaan waana same tusaale ahaan waa same biib waa tusaale tan konton biib SLK ku ah tan konton biib SLK ku ah laakiin maxaa waaye waxa cadadka ay ku fadhiyaan lacagaha kala duwan markaas ogow kuladka taas soo qaadato ma keeni karto marka cadadkaas ma keeni karto kuladka ma ku keeni karto marka maxaa jirta waqtiyada loo isticmaalaa jirta insha Allah laba waqtiyada booqan doonaa midaan insha Allah saayid u isticmaalaa kaas insha Allah inta soo doon qaabka loo isticmaalo insha Allah laakiin losses maxaa waaye asaga losses maxaa waaye losses ku cabirka lagu cabiro marka akoonkaaga ACC ah kusoo gaashay akoonka kusoo gaashay oo halbeeg isku waafaqsan yahay waa okay ku socono marka waxaan wax tigeena inta kan u gelin marka wax tigeena waqtiyada lagu cabiro marka dadka ugu horeeya maxaa waaye dadka ugu horeeya waa kan business oo kale hadda u fiirsa marka business waxa gali lacagta inta soo dooranaysa lacag inta ku jiraan Soomaaliya euro USD SAR waxaas ku jiraan Soomaaliya USD noo soo qabo tan wuxuu ku weydiinaa marka akoonka size-ka ku weydiinaa $1 dhaysa istigaar shuga aad gelinaysa maxaa waaye 1% dhiganaya
biibka maxaa waaye waa soddon biib waaye losska ku gelaysa maxaa waaye 0.1 haddaa ku gelayso kale $10 baa khasaaraysaa ku dhahaya marka saas kala duwan yahay okay laakiin kan ana ma isticmaala marka kan ma jeceli ana ma isticmaala dad waxyaalo badan u baahan inaad gelis ama xisaabaad badan u baahan waxyaalo badan hoos kugu soo qoraya wax la fahmi kara ma aha dad isticmaala way jiraan maasha Allah laakiin ana ma isticmaalo haddaa aragtay biriga kale aniga waxaan isticmaalaa midkan la dhaho bib value kan la dhaho bib collateral bib collateral xisaab bib collateral wuxuu kaaga baahan waxaaga adag ka helaysa oo baahan macnaa inaad ku gelgeliyo marka lacagta inta soo dooranaysa hada lacagta laba lacag ku baraaween marka lacag dollar wax ku baraaween lacag kale ku baraaween si qiimo u kala duwan yihiin ku sheegaya marka okay انت maxaa waaye euro USD aan soo qaadana okay inta maxaa waaye biibka gelinayna soo ana konton biibka gelinayna okay madax waa inaad ku haysataa marka akoonkaaga meeqa percentage oo gashay adaa madax ku qabsanaysa adaa madax ku qabsanaysa ana maxaa waaye 15,000 akoonka dib kugu jirto macnaheedu maxaa waaye $150 waaye sidee $150 soo saaraysaa kuulaadka la soo baxaysa hal mar waxaad gelinaysaa kadib marka lacagta aad gelinaysaa akoonka kugu jirta akoonka waxa ugu jirtay $1,000 ugu jira dhexe $1,000 ugu jira waxa ku dhufanaysaa $1,000 1% so 1ka waxaa raacinaysaa calaamadda percentage raacinaysaa kadib ig walaal ahaysaa meeqa kuu soo baxaysa marka $10 kuu soo baxaysa calaa trade inaad khasaare gelis aa kuu soo baxaysa waa kii hadda wax noo soo sheegay sooma bisha kala kii kala isticmaal noo soo sheegay $10 inaad khasaare gelin noo soo sheegay sooma laakiin anaga gashanay niyada ku qabsanaa okay kan maxaa sameynaa niyada ku qabsanaa $10 khasaare oo gal haya dhahaysa waa $1,000 ku jirto taas ku soo saaraysaa marka ani $100 sidaa ku soo saar waa sidaa maxaa sameynaysaa u fiirso 15,000 akoon ku jirto aa haystaa wax ku dhufanaya markaas 1% ku dhufanaya kadib waxay soo baxaya $100 ay soo baxayso niyada ku haystaa marka $100 marka konton biiba SLE ah 0.5 tan kale waxay soo baxaysa marka 200 ay soo baxaysa $100 in khasaare ay soo baxaysa hab bedelaya 0.5 ka dhig ilaa $100 tigis ujeedo $100 0.2 ta dhaawacay $100 toogan marka ilaa $100 ka tigayso kaloodka bedelaya adoo ku daraacay 0.25 ta dhaw kale 125 0.3 dhahaya 3.3 loo siiyaa marka trades maxaa ku galaya trades wax ku galaya $100 trades ku galaya ma aha loteskaas 3.3 trades ku gali maayo على تريد waxaan dhiganayaa khasaaro $150 khasaaro dhiganayaa waay على تريد ku gali maaya marka 0.3 ku gali maayo u fiirso marka waa kala duwan yihiin lacag kala qiimo sareeya waa kala qiimo duwan yihiin hadda lacag kala tigina $1 socon u fiirso inta maxaa ku qoran 0.3 ku qoran Soomaa inta konton biiba ku qoran Soomaa ma bedelayna inta lacag bisa bedelayna euro ka soo qabo ma aragtaa $110 isku bedeshay maxaa hoos u dhacay $40 hoos u dhacday marka maxaa waaye ku dar marka ilaa $100 gaarsiin 0.4 ka dhig 0.4 waa 140 0.41 dheh ujeedo 150 iyo 150 waaye 150 ujeedo marka waa same bib sana konton bib waaye isku waxa waaye isku hal qadaar dhigtay $150 qadaar dhigtay laakiin maxay kala duwan yihiin losses kala duwan yihiin lacagaha dollarka maxaa waaye wixii qiimo sareeya marka lacagaha kale lacag kale waxa jirta lacag dollarka qiimo sareysa marka waa euro GBP ka wada sorry waa euro GBP ayadoo fiirsan marka 0.41 keena marka waaye 258 waa marka ayada qaali waaye 0. ay waxa ku garaysaa 0.2 dheh 236 maraysa 0.25 0.24 اوكي waa kaas 0.24 ku galaysa ayada marka lacagtan waa lacagta ugu qiimaha sareeya waaye wax ka qiimo sareysa bas sirfa lacagta adag ka qiimo sareysa waa lacag aad strong oo aad u ah inta badan laba isticmaala marka oo qofka advansiga si fiican u fahamsan isticmaala ma ahane dad kale oo inta basic tiina ku tagdina lacagta sirfa oo kale iyo lacagta gold oo kale lacagta gold asoo iska qiimihiisa iska caadi laakiin value ku soconayo kale aad u qaali ah laakiin sirfarka value ku soconayo waa qaali ama xawaaro ku soconayo waa qaali lacagtu ku fadhina waa qaali laakiin lacagta ugu qaalisan lacagaha caadiga ah marka lacagta community la isku dhaha kuwaas kuwa caadiga ah oo lacagaha aan soo sarfino caadiga ah oo wadamada kale marka aan soo qabano lacagta ugu qaalisan waa lacagta euro GBP waaye maxaa waaye waa lacagta eurada iyo lacagta poundka oo UK marka waa sidaas marka waxa isticmaalaysaa calculator kana isticmaalaysaa oo ah waxa laga waxa la dhahaa bib calculator qoraysaa FXT ama ku soo baxaya marka ka dhex isticmaalaysaa saa ka dhex isticmaalaysaa marka waxa madax ku qabsanaysa $150 madax ku qabsanaysa hadda looska bedelaysa ilaa $150 isku bedelaysa marka asaga aad u fudud wala fahansiya kuwa kale maxay kaaga baahan yihiin kuwa kale waxay kaaga baahan yihiin inaad qiimo gargeliso inaad soo geliso waxyaabo badan kaaga baahan yihiin inaad rishuwa gargeliso laakiin waa iska basiid marka insha Allah isticmaala okay casharkii labaad ku soconaba marka maadaama aad dhahdeen laba cashar isku xijiya casharka kale ku xigan wuxuu noqonayaa marka waxa la dhaho buy stop sell stop iyo sell limit iyo buy limit uu noqonaa insha Allah maxaa waa farqiga u dhaxeeya maanta afartan maadaama aan soo baranay buy iyo sell aan soo baranay kana maxaa waa buy stop sell limit
iyo buy limit stop taas u malayn marka waxyaalo oo joojin ah u malayn hadda qiimo kale hadda macno kale ku fadhida okay si falaalaha ka muuqata maxaa waaye suuqan macnihiisu waxa waaye suuq soo socday suuqan buy ku soo socday buy ku soo socday buy ku soo socday buy ku soo socday suuq buy ku soo socday halkaas tagoo kale hore ii raacsi macnaa inta ku maraayo suuqa ugu sii dar soo chartna waa tagi doonaa insha Allah halkaas markuu maraayo suuqa hore ugu sii dar waaye macnaa hore ii raacsi kana maxaa waaye waa cagsigiiso suuq sii socdo markuu numberkaas tago cayiman u tago hore ii raacsi marka labadan badanaa ma isticmaalna anaga ahaan ma isticmaalno suuq sii socdo hore oo sii galno waxaan sameynaa laba mid isticmaalnaa suuq sii socdo waa sii galnaayo goorma sii galnaa suuq ma correction soo sameeyo correction iyo import waxda u tegi doona insha Allah waxaan sameynaa markuu soo nasta marka soo nasanaya hoos sii galnaa suuq sii socdo sii galnaa maaha laakiin ma sii dhigano ma sii dhigano taas waa mid tan bataatan ma isticmaalno anaga ahaan ma isticmaalno tarna haddii loo baahdo waa isticmaalnaa laakiin ayadana boqolkiiba 99 ma isticmaal weliga anu ma isticmaalin tan laakiin waxaa idin siinaa concept ahaan bari markaa suuqa tagtaan ama aad tagtaan ama dadka is wareysanaysaan kale dhalinyarta is wareysanaysaan kale maxaa laga wadaa inaan is dhihina insha Allah idin baraya laakiin ma aha inaad isticmaalaysaan taas ogaada okay tan maxaa waaye marka suuq sii socdo hore isii geli tan maxaa waaye suuq seel u socdo hore isii geli tan maxaa waaye suuq baa u socdo hore isii geli waa okay labadan u dhimaana labadan maxaa waaye labadan rajadeena with analyze lahaa way anfacaysaa waa ku habboon tahay laakiin ayadana ma isticmaalo okay maadaama suuqu intriga imaado intriga insha Allah soo barna soo ma intriga waa meesha suuqa geli lahayd soo ma intriga soo meesha suuqa geli lahayd okay intriga suuqu imaado ama si erey ka dareemaysa intriga waa meesha suuqa ka geli lahayd soo ma suuqu imaado confirmation ka fiirma confirmation insha Allah u tagi doona waxa la dhaho koorsada afka ku qaadan doontaan markii wixii la dhaho meesha maadaama aan ka fiirno ma suuqii soo socda ma xaggaas tago sii geli ma dhihi karnaa sababta confirmation ma haysanaba okay marka ayada maxaa u isticmaalnaa ayada waxaa u isticmaalnaa marka suuq soo socday سؤال واحد احنا ماشي انا سوق كلا وانا دح اوكي سؤال مeel u socota baruna u socota shaqa u socota masuul karti suuq intuu imaanayo kale meeshan waxa dhiganaysaa limit kaaga meesha dhiganaysaa waxa dhahay suuq ka imaado hore ugu sii dara dhahaysaa marka adiga ay suginto hore ii sii wareejay suuq sii socda amal urjeenay okay tan waa cagsi ku tahayo suuq seel u soo socda baa ii soo gali waay suuq seel u socda baa ii soo gali tan maxaa waa suuq soo socday seel ii sii gali waay marka maxaa waaye taas u faham marka waxay maxaa stop la dhahaa maxaa buy stop la dhahaa maxaa sell limit la dhahaa maxaa buy limit la dhahaa maxaa sell stop la dhahaa waxaas oo dhan marka maxaa waaye waa sidaas waa marka taas u faham insha Allah marka hal mar waxaan rabaa inaan intuso sawir ku saabsan marka insha Allah wax ku arki doontaa haddii process ku qorto Google kale ha ku wareerin insha Allah sawirkaas hal mar idin sharxay Google ha tageena marka sawirka hadda Google ku aragto asagana ha ku wareerin marka sawirka hadda Google ku aragtay ha ku wareerin 0.001 0.01 0.10 01 waxaas oo dhan ku wareer waxa maxaa u isticmaalaysaa waa lot jira waaye inta xada waxa ku qoran marka akoon 100 kun haysato waa inaad isticmaashaa 1 inaad isticmaashaa marka akoon 10 kun haysatana waa inaad isticmaashaa 0.10 marka akoon $1000 haysato waa inaad isticmaashaa 0.01 marka isticmaashaa akoon $100 haysatana waa inaad isticmaashaa 0.001 waxa meesha ku qoran laakiin adiga waxaas ha u fahmi okay ha u fahmi hadda maxay isticmaalayeen akoon $100 haysano akoon $5,000 anoo haysan maxay isticmaalayeen waxay isticmaalayeen soo ma 0.3 isticmaalayeen okay akoonka 10 kuna waa kana soo ma inta waxa ku qoran wana ku qoran marka waxa waa isma keenayso marka cabirada meesha ku qoran ee waxa meesha ku qoran isma keenayso maxaa adiga ku haaya adiga waxa ku haaya marka risk management yaa ku haaya insha Allah taas ugaada hadda qasaara akoonka cayiman dhigo kadibna waxa samaysaa qiimaha ka gudbi marka qiimaha isticmaal ama hal ha ahaado ama teen ha ahaado ama wan ha ahaado wuxuu rabo ahaadee adiga suuqa ku hagaay biibka aad sabto iyo percentage suuqa dhigatay iyo lacagta aad isticmaal saddexdaas ku hagayso waxaan kuma hagaayaan marka adiga ku wareerin waxaan marka insha Allah si fiican marka u wada insha Allah waxa noqon doonta ardo perfect noqon doonta si fiican waxaan u fahansan okay laakiin inta basic tiin oo kale ana waxyaalo soo wareerin jiray marka basic ah oo kale aan si fiican u qaban jiray waxa kamid ah waxyaalahan ku khasaaray waxyaalahan kamid ah okay كم بقدر رايسا ما أنت 0.001 أسكي ودايا نو واحد مع السوق واحد كين مس مركز هاي كده أنت وسنتيالو أو يعني كفاية هالكي بيب واي سوق عليها بقول بيب لو بقول بيب أسكت دقائق عليها با لكن أدو واحد صار كفاية أوكي مركز أكوريرين مركز حيالا أنكو خسارة كده محاكم بدها حيالا أنا كم بدها مركز محسن ميسا أكوريرين طلع هذا استهان الرطوة كله هسك استعمال ما أدري وين هسك استعمال محاكو هجاية صدق واحد كويس أوكي صدق واحد معاواي إنا هايستو risk management tiga muxuu yahay 1% akoonka aad taqaan intuu ka tahay talaad maxaa waa inaa haysato biib cayiman inaa haysato hataa 50 biib 20 biib 30 biib inaa haysato okay waxa kale u baahan tahay waqti waxa kugu soo baxaya marka loss size kan la raadina markaas kugu soo baxaya risk management tigaaga
aan 1% akoonka intay ka tahay iyo biibka ah haysto wixii kadibna losseska asaga kuu soo baxay intuu yahay uma baahna marka waxyaalaha inaad isticmaasho okay hamar waxaan rabaa marka inaad tagno chartiga marka inaad tagnaa rabaa oo aan ka sharaxo marka buy limitkii sell limitkii waxyaalihii aan soo arkayn okay hadda suuqa halkaan oo kale waa moogtaa suuqa halkaan oo kale waa waxa u saadaalinayna hadda suuqan oo gooldi waaye kolay waa taala group chat way taala iyo maasha Allah ah waa in tusoo doona ayaan sii dul mari doonaa hadda group chat ku jirin please waa ku codsanaa group chat ku soo bir isuga channel ku soo bir waxyaalo badan ku dhaafaya waxaan sameeyaa ardayda comment ku soo qoraysa waa arkay oo xag linkiga ah linkiga wax ka fiirsa description uu yaala casharkan hoostiisa hadda comment ka soo dhigi doona insha Allah xaggaasna insha Allah hof badan ku geli doonaa isbuucyo soo socda koorsay adfansiga ku soo bandhigi doonaa waxyaalo badan wax ka soo bandhigi doonaa isbuuc soo socda insha Allah isbuucyo soo dhaaf xogaa mashquul ahaa marka hadda insha Allah si fiican u jooga okay waan ku soconaa marka aan ku bilownay marka sell limit maxaa waaye sell limit waxa waaye suuqan wuu soo socdaa soo ma soo socda wuu soo socdaa anaga waxaan u saadaalinaynaa xariiqadan meesha taala suuq markuu tago inuu sell ka soo aadayo soo ma waxa waaye war suuqa hadda intuu maraa wuu dhow yahay soo ma ha wuu dhow yahay soo ma hayra u dhiman intuu xaggaas aado soo ma waxaa samaynaysaa marka masuul kara suuqa ilaa xaggaas inuu ka tagay suuq masuul kari marka waxaa samaynaysaa suuqana sell limit xaggan dhiganaysaa sell limit xaggan dhiganaysaa sell limit he ay xaggan dhiganaysaa kadibna suuqa he sell ku soo aadi doonaa marka sell u soo galaysa buy limit maxaa waaye buy limit ayaa sidoo kale waa suuq soo socda suuqa inta ku socday soo ma ha lacagtan waxaa xasuustaa insha Allah inta filaar ka saarnay filaartan inta ka saarnay ilaa xaggaas filaarta geeyay wax yar oo dhiman meesha filaarta tagtay laakiin almost waxay socotay 800 biib ka badan ay socotay dadna ku wareersiin marka 20 biib waxaas ku wareersiin anagu 800 biib suuqa dareena okay hal suuq intuu soo maraa marka filaartan aan dhahayna saan aan dhahayna insha Allah gruupka waa tagi doonaa marka maxaa waaye masuul kariya dhaa suuqa intuu ilaa xaggiis ka tagay masuul kari macna shaqa u socda shaqa ka taxsana marka maxaa samaynaysaa waxa u dhiganaysaa buy limit u dhiganaysaa marka buy limit u dhigan maxaa waaye suuq soo socda buy ugu dar waaye buy limit macnaheedu okay sell limit maxaa waaye suuq soo socdo buy u soo socdo sell ugu dar waaye okay labadaas maxaa waaye waa labada limit ka ay marka waxa u taginaa labada stop ka ay u taginaa marka buy stop iyo sell stop ahay marka buy stop ayadana maxaa waaye buy stop waxa waaye ku bilow buy stop waxa waaye suuq uu soo socdo ahaan adiga waxa ku cayiman wax dhan suuqan ku hayga jabiyo haygan suuq ku jabiyo suuq uu sii soconaya dhah okay waxa samaynaysaa halkaan waxa dhiganaysaa marka buy stop aad dhiganaysaa ah suuq sii socdo buy uu sii dar waaye hada suuqa inta buy stop dhigan lahayd ilaa maxaa faa'iido lahayd halkaan suuq uu tagay ilaa inta u dhaxaysa faa'iido lahayd camal waa ka suuqan uu haygaas jabiyo buy stop ugu sii dar hore u sii raaca waa ilaa xagsan la tago okay sell stopna maxaa waaye suuqa loogan jabiyo kale waxa dhahday waxa ugu dartaa sell stop ugu dar oo suuqan hadda hor isi raacsi camal ilaa xagsan la tagay laakiin labadan maxaa waaye labadan waa free risk ma isticmaal okay labadan waa free risk ma isticmaal labada kalena hal mar isticmaali karnaa laakiin aydan saaid uma isticmaalno maadaama aan nahay marka dad active oo suuqii maanta chartka dhex taaganoo uma baahna marka inaan isticmaalno sell stop iyo sell limit waxa buy stop wax ma isticmaal uma baahna weliga uma isticmaalin laakiin waxa idin siinaa concept ahaan inaad fahantaan okay hamar aan tagno marka group chat iyo sidoo muhiim u yahay inaad ku soo biirto okay group chatka marka waa kana group chat waxaan ku qoran Garaadsa Forex Trade aan ku qoran channelkana waa ka weynka ah oo garaadsa waa wax walba yaala casharadii oo wax yaala illustratorka wax dhan ay yaalaan video editingka wax dhan ay yaalaan laakiin hadda isbuucida u dambeeyay insha Allah Forex baa ku soo kordhiyay marka saas ogaada okay marka labadan waaye mid waa garaadso oo groupka weynka ah midna waa garaadsa Forex Trading oo ah group chatka waxa ku jirta ardo almost dhan 517 qof baa ku jirta hadda sii socdaan okay marka hoos maxaan ku qoran marka hoos waa shahaadada isbuucan shahaadadeedii waaye adrasaq aniga waaye waxa baasiyay akoon waxa baasiyay $15,000 akoon ku jirto baasiyay waxa ku baasiyay lacagtan kaliya lacagtan gool ku baasiyay ma aragtaan inkastoo la gool qeyd u dambaysa kaga baasiyay ma ahan waxaan dhan kuma baasin oo wax waqti badan ku soo jiray gool laakiin akoonkan marka waxaan hayay within 5 days bas ku baasiyay 5 days waxa ku shaqeeyay lacag oo kun iyo inta ku qoranta daamar gaal kor u baxday waa kana ma aragtaan $1386 maxaa mara qasaaray halkaas ma qasaaray $37 la qasaaray inta kale maxaa aragtan waa faa'iido 20 iyo 224 73 125 225 165 todobadan waxa waaye waa lacag xokisto isdhaw kale waa qurxoon tahay waa mistake aan ku sameeyay waay laakiin ayada xataa ma qasaari lahayd mistake ka fiirsan lahaa okay marka Forex way leedahay qasaaro faa'iido qasaar labadaba way leedahay way leedahay laakiin maxaa fiican in faa'iidada ay banaato mar walba taasna waxaa kaaga baahan tahay inaad isticmaasho siyaasad fiican inaad isticmaasho kaaga baahan tahay okay marka
insha Allah ninkan waxaan idin bari doonaa si fiican idin bari doonaa marka waxa ku socdo marka kan maxaa waaye waxa ku qoran marsaaq ku qoran anigu waaye shahaadada baasi akoonto meesha kuna baasi oo fund nagasti ah insha Allah waa u tagi doonaa marka broker sheekeynay waxa ka soo sheekeynay saddex wax brokerka caadiga ah oo brokerka ah iyo sidoo kale waxa ku jirtay soo maahan funding waxa la dhaho kale oo funding nagas ama fundiyo oo lacag siiyo ka ku jirtay marka shirkadana kamid ah funding nagas laha kamid ah Soomaaliya si aad u isticmaasho lacag bay ku siinayaan kadib lacagta ku shaqaysanaya imtixaan ka qaadaya marka koowaad laba faysa ka qaadaya imtixaan labadaas iska daa ku siinaya akoonto 5 kale ku siinaya akoonto 5 kale waxa u sameeyay marka inaa laga yaabo in iskirisaan oo kale hadduu qofka lacag ka sameeyo oo kale muxuu marka ninka lacag kaga qaadaya ninka waqtigan kugu bixinaya inaa taas fahantaan in kuu sameeyay box lacag waa ka sameynaa yes laakiin maxaa u baahan tihiin hadaa maanta idin dhaho kale for example hadaa maanta idin dhaho koorta free idin qabanaya waxa laga yaabaa inay soo xaadireysaan oo arday badan koorta free waa u qabta more than 3 sano u dhameysay koorta free waa dhigay laakiin waxaan ku arkayay 200 qof baa koorta u qabanaysa ama 300 qof baa koorta u qabanaysa waxa ka dhamay 10 qof baa ka dhamaynaysa ama 2 qof baa ka dhamaynaysa koorta dhamayda arday qabato ku soo daasho ku soo rafaaday laakiin marka lacag ka dhigto kale 3 qof baa u qabato 3 qof koorta si fiican u dhamaynaya taas soo arka marka wadaas waan u qabanaya marka okay tan maxaa waaye waa lacagta oil xakaasaan ka dirnay ilaa xakaas taala wax badan ku arkaysan groupkan hada gooldi waxa ku arkaysan sawirka u dambeeyay xalaan soo dhigay waa kaasa kor hada ku dhufatid waxa u tagaysaa asoo aan dhaqaaqina suuqa u tagaysaa dad maxay sameynayaan dadka macallimiinta iyada waxay sameeyaan before the after tii soo dirayaan suuq inta soo dhaqaaqan ka hor soo dhig kartoon eel suuq hee inta soo dhaqaaqan ka hor soo dhig hadana maxaa sameynaa anaga waxa ka arkaysan groupkeena suuqa soo dhaqaaqina soo dhignaa kadibna after tii soo dhignaa hada lacagtan kale kuwan kale wali ma is dhaqaaq meel dhexe marayaan kor u soco hadda waxa arkaysaa waa lagu soo mashin garay ma aragtan hada lacagta maxaa waaye ustaad sahal soo dhigay oo asna groupka lagu jira ustaad sahal insha Allah koorta astansiga insha Allah isku baran doontaano hada imaataan insha Allah koorta astansiga isku baran doontaan ustaadkaas soo dhigay marka waxa aragtaan lacagtan sahal u soo diray had before tii aawe koray taala ma aragtaan sahal u soo diray after tii aawe waa tana marka macallimiinta waxa idin dhiga maxay sameeyaan before after tii idin soo wada diraya suuq inta soo dhaqaaqan koor ma soo dhigayaan before after anka waxa idin tarmayso ina ka faa'iideysteen rabtaan ogtahay waxa marka waa sad ab waa lacag aan gelina waa kana anoo ku jirna waa kana ma ahan dad maxay sameeyaan marka laba koox laba dad marka dad waxay sameeyaan before after tii soo diraan dad maxay sameeyaan suuqii before tii soo dhigayaan kadib after soo dhigaan laakiin suuqaas ma galaan marka waa inaad siisaa arday dhiirigelin waa inaad siisaa oo wixii aad ku tirigelinaysa in wixii sax yihiin lacagta aad qaadatay wixii dhan waa inaad ardayda tustaa marka okay sidoo kale inta bitcoin-ka xataa u fiirsada taariikhda aan ka qoray bitcoin ada qoraalkan akhrisaan oo kale 19 ayaan maraysay waxay 2022 ahayd sawirkii chartiga ayaa laftii groupka waa yaala 15 ay tagtay 42 80 waxaas dhan tagay Soomaan hadda la tagay wax maraysa bitcoin 60 iyo maraysa 60 iyo 5,000 maraysa 70 meelaha ku dhowda okay waagaas waxay maraysaa in dhahay lacagtan bitcoin meel fiican ay tagi doontaa inta xaq qoran 80,000 ilaa waxay tagaysaa in dhahay ilaa 70,000 halkan 70,000 moodan 70 bay tagi doontaa in dhahay sawirka hadda waa 3 Febraayo waaye qoraalkan laakiin before after ta sawirka before after insha Allah groupku yaalay aad ka arkaysaan anoo sawirka xataa 2022 ka hor baa qaaday waxay u saarayeen 2022 ka hor qaaday sawirkaas marka 2022 bishii saddexaad aan qaaday marka qoraalka aad akhrisaan qoraalka dhex fahmaysan 15 ayuu marayso aan waxa dhahay waxay tagi doontaa 80,000 ay tagi doontaa marka 80,000 u saadaaliin marka waxa maraysa marka hadda wax maraysa markaas aan qoraalkan qoray 3 Febraayo 42,000 maraysa wali maxaa ku dhaganaa lacagta ay tageyso 70,000 ay tageysa ku dhaganaa hadda maxay maraysaa marka almost 70,000 way taabat marka waxaas maxaa waaye waxaas waa cilmi marka waa aqoon iyo analyze waa marka insha Allah fursada insha Allah ku soo biira fursada insha Allah usbuuc soo bilaaban doonta sidoo kale waxa sameeysan group chat ku soo biira group chat insha Allah live analyze ku qaban doona sidoo kale codayn baa sameyn doona insha Allah waa imkaas marka insha Allah soo biira sidoo kale channelkan subscribe saar insha Allah waxa soo dhigi doona ma joojin doona fiidiyoyaasha ma joojin doona ku saabsan forex ku saabsan casharada ay dhamaadaan weekly analyze usbuuclaha soo dhigi doona sida ayadoo live aan soo dhigi doona sida ayadan hadda inta ku sameeyno ayadoo live insha Allah soo dhigi doona oo video insha Allah soo dhigi doona marka insha Allah ku soo dhawaada marka la guys